gudoomiyaha maxkamada sare ee Somaliland oo ay weheliyaan 9 garsoore iyo kaaliyaha maxkamada dastuuriga ayaa waxay dhageysteen 8 dacwadood oo kamid ahaa dacwadihii ka dhashay doorashadii golaha wakiilada gaar ahaan natiijooyinkii hordhaca ahaa waxaana maanta mudaysnaa 9 dacwadood balse waxaan halkaasi ka soo xaadirin mid kamid ah musharaxiintii iyo qareenadiisii waxaana sidaasi lagu dhageystay 8 dacwadood iyadoo marka loo geeyo 14 dacwadood oo hore oo ay dhageysatay maxkamadu ay tirada ka dhigayaan 22 dacwadood waxaana sidaasi ku soo dhamaaday dacwadihii gaarayay 23 dacwadood ee ka dhashay natiijada hordhaca ee doorashooyinka sidoo kale dacwadani ayaa maanta waxa sidoo kale dhagaysiga dacwadahani ayaa maanta waxay ahaayeen kuwa u furan guud ahaan bulshada qaybaheeda kala duwan iyo sidoo kale korjoogayaashii caalamiga ah iyo kuwii maxalliga ah ee ka qayb galay doorashada iyadoo dhagaysiga dacwadana loo eegayay xeerka doorashooyinka waxaana la filayaa in maalmaha soo socda ay si degdeg ah maxkamada sare ee Somaliland ay uga soo saarto go'aan amba qaraarka kama dambaysta waxaana sidaasi guud ahaan ku soo dhamaaday dacwadihii musharaxiinta golaha wakiilada ee Somaliland ay ka qabeen natiijooyinka hordhaca qaar kamid ah waa maxamed cali xaashi Televisionka Baddacas magaalada Hargeysa